السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت لي كسو دواده رمالة جانل. waxaa maanta idin soo gudbinayaa fuul aan si fiican u kariyo aad ugu heli doontaan haddaad tijaabisaan insha Allah. halkaas waxaa ku haystaa yaanyo aan jarjaray, 2 xabo tuun si fiican uma jeedaan filaya, iyo 2 xabo basbaas iyo xabad basal aan jarjaray ayaa halka ku haystaa. marka toonta aad u yaryareeyay waxaan garaacay ma ahan, basbaaskan caadi waa jarjaray sida u yara jarjaray kartid. waxaa ku soo haray yaanyadana sidoo kale, basashana waa aad u yaryareeyay iyadana. marka haata waxaan aan dabka saaraynaa olive rabaa inaan ku dalaco. waxaan dabka saaraynaa taawada, hadduu rabbi idmo dabkan daaranayaa. taawada markay noo yaro kululaato ayaa waxaan ku darayaa in yaro olive oil ah insha Allah. olive oilkana soo adaa qiyaasan karo xoogaa. marka waxaan hadda ku riday waa yaanyadii iyo 2 xabo tuunta iska badanin, 2 xabo tuun iyo 2 xabo basbaas isku yar huuriyay. markay huurto ma aragtaya ayaa waxaa ku ridanaynaa gasacii fuulka lagu darayaa insha Allah. kadibna isku yar huurinaynaa haddana sida isku yar karto. kadibna wixii kale aan gadaal kaga dari karna kaga daraynaa insha Allah. sida oo la socdo waa ka fuulkeeni. fuulkan waxaa ka heli kartaa ay dukaan Soomaali ah, ay dukaan oo Carab ah, even Hindida way gadaan insha Allah. haddii ay UK joogtid, haddii meelahaas kala joogtidna kale dukaamada muslimka laga helaa ama ajnabiga insha Allah ayaa ka helaysaa. haddii aad Soomaaliya joogtidna Carabtaaba niga la keenaya saan filaayo. maxaa la dhahayaa hadda fuulkii ku daray. fuulka sidiisaba hadda waa diyaar, wax karis badan uma baahna ama dab in lagu raajiyo. daas waaya yaanyada kaga hormaray. yaanyada fresh ahayd, marka waxay u baahneed xabad yaanyo fresh ah ayay ahayd. marka waxay u baahan tahay inay yara huurto. daas waaya yaanyada hormariyay. basbaaskana inuu xoogaa yara inuu ku yara baxo. toontana carafta toonta aad ay cunadu carfisaa. marka hadda waa isku daray, waa isku yar huurinayaa. kadibna waxaan ku daran doonaa hadduu rabbi raali ka noqdo basasha ma doonayo inaan ku wada daro iyadoo dhan, in yara ka reebayaa saa hadhow ma aragtaya aan korka ugu sharxo. waa maasha Allah tabarakallah, bahal aad u macaan kasoo bixi doono. waxaan rajeynayaa idinkan inaad maaragtaa tijaabisaan, aad maaragtaya karsataan. qofka wuxuu tijaabiyo uu ka hadli karaa insha Allah. laakiin very nice beautiful way maasha Allah. basashiya ku darnay. haata waxaa kale ku daraynaa jiista. intaas markay hadda isku yar huurto waxaa ku daraynaa jiista 3 geesta ah ayaa waxaan rabnaa inaan ku darno. hadda waxaa ku darayaa maraq dijaaj qiyaastaadii, because digirta waa diyaar, ma u baahan xataa wallahi cusbo. laakiin in yar oo dhadhan ah haddaa u baahan tahay, because yaanyo iyo waxyaabo kaloo badan oo ku dartay soomaha. xabaaji ku daray hadeer, xabaaji qaadada yar oo shaaha oo kale ku daray, xabaaji duuduub bahalkii la dhihi jiray. maraq dijaajkana in yar ku daray, ma dhama qaadada yar xataa, because bahasha cusub ay leedahay digirta gasaca ku jiro. marka waxaa kale ku daraynaa farmaajada 3 geesta insha Allah. waxay ka dhigaysaa cream, dhadhan u yeelaysaa iyadana. umada 2 xabo ku darsadaan, laakiin 1 xabo ku daray, subag badan ma rabo. marka inta isku karaan
kadibna waxa weeye waaba inoo diyaar. Hadda kabsar caleentana saana u diyaarsadaa ani mar walba intaan 3 xabo 4 xabo xirmo soo gato ayaan dhaqaa waan nadiifiyaa waa salka ka gooyaa 2 xabo u jaraa bacahaas fridge-ka loogu talagalay ayaa aan ku riritaa qiyaasteedii inta aan maalin walba cuntada ku garsanayo marka qaybta barafka geliyaa frozen-ka kadibna haata uma baahna inaan dhaqo uma baahna inaan garaaco uma baahna inaan jarjaro gacanteeda ku jijibiyo waa ku ridi maasha Allah carafteedina say inaa hadir soo gatiyo oo soo gadatay oo kale suuqa ka keentay oo carfeysa marka taasi tana waa faa'iido kale oo gaar ah maxaa ku soo haray bahashani way inoo kartay almost ready waaye waa diyaar insha Allah dhawaan waan ka dajinaynaa kadibna waxaan isticmaali doonaa waxaan isticmaali doonaa basashi iyo waxyaabo kale aan ku qurxinayni lemon iyo basbaas kale iyo insha Allah waatana cheese saddex geeska waxay dhahaan magaceeda ma xasuusto kareemi waaye soo maahan way ku dhex milmaysaa hadeer way ku dhex milmay waxay u yeelaysaa dhadhan u yeelaysaa maasha Allah معاني كسور بحيسا والله I can't believe it full can يا هذا معايا وليبا هدي أتقبس كسير أنتو ما لقى شيكين كرا قبسك أو فريش هذا أهلي زيت والنبع عادي معهن إن شاء الله هل سوي تجابيه قبله جكذا ما ركتها هلا وركينه marka soo tijaabisiina insha Allah commentiga hoos ku soo dhaafo ina dhahdaan ramala waa tijaabiye good way bad way insha Allah idinka aniga la sugaaya labadaba waxa soo dhahdaan haatana waa inoo diyaar cunadeeni waa ka guranay waa ka kadibna waxaan ku sharxeynaa waxyaabihii lagu sharxi lahaa insha Allah waxaan rabaa inaan dusha ka saaro basbaas 2 xabo basbaas dhaqan iyo in yar oo basashi aan ka reebay haday markaan aan karinayo jab lemon ah iyo wax yar maaragtaya olive oil aan rabo inaan korka kaga daro waata waxyar olive oil aan korka kaga darayaa insha Allah iyo kabsar caleenti ayaan hadana maaragtaa korka in yar kaga darayaa ku qurxinayaa marka very beautiful insha Allah soo tijaabiya like to comment and sharing kana xageeni olive badan ku darayaa way ku yara macaanaanaysaa marka korka wax yar laga daro aadey tacam u yeelanaysaa insha Allah basbaaskana qofkii basbaas cunid badan ayaa maaragtaya saaid kaga darsan karo kor kii kalena ma u baahnaba because waa ku karinayso ma baaha kabsar caleentana waa iska sharaxaad intaan yar inta badan waa ku soo karinay maasha Allah caraftiisi iyo dhadhankiisi lagama sheekeyn karo maasha Allah waa ka sidaas ku soo baxay waxa ku cuni kartaa rooti khubus whatever sabaayad kuma dhahay laakiin because sabaayad ma loogu talagalin way culustahay sabaayada kumana fiicna insha Allah laakiin rootiga ama qubuska ayaa lagu cunaa aadayna ugu macaan tahay waa maasha Allah tabaarakallah walaalayaal mar labaad mar saddexaad waxa idin leeyahay ku soo dhawaada Ramala channel insha Allah is aragti dambe oo xiiso leh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.